Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada channelka AK Vlogs. Waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo xaafadda masallaha. Waxaan doonayaa inaan halkan ka soo duubo muuqaal aan doonaya inaan ka diyaariyo project ugu weyn ee magaalada Hargeysa laga wado oo ah guryo apartments ah oo ay dhistay shirkadda Telesom ay maalgelisay, waxaana dhistay shirkadda loo yaqaan Capson. Waxaan doonayaa inaan muuqaal aan idinka soo duubo wixii information ah in la soo wadaagi karo oo ku saabsan in la wadaago. Sidoo kale guud ahaan xaafadan inaan muuqaal idinka soo duubo ayaan jeclaystay oo ah xaafad aad u qurux badan. La socod wanaagsan channelka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, haddii kalena muuqaalka like saar si uu gaadho dad muuqaal kale doonaya inay daawadaan. Aad iyo aad baa mahadsantahay. Guryahan ayaa waxaa dhisaysa shirkadda Telesom saan muuqaalkan ku sheegay. Waana runtii design cusub oo wadanka imika lagu soo kordhiyay in qaabkan apartmentska guryaha loo dhiso. Deer weyn ayaa ku wada wareegsan. Guryahan waxaan ku qiyaasayaa inay yihiin ilaa 100 guri haddii aan ka badnayn. Runtii waa xilli Jimco ah, shaqo ka socota. Isla maanta ayaan duubay. Marka runtii shaqo adag ayaa meesha ka socota, xitaa Jimco loo nasan maayo. Guryahan way ka yara duwan yihiin kuwii aan maanta reporta kala jahan aan kaga warramaya information ka siinay. Guryahan guud ahaan waxay ka kooban yihiin laba dabaq, sidoo kale gate ay leeyihiin ku wareegsan, yani guri kasta gatekiisa gaarka ah ayaa ku wareegsan. Guryahan sidoo kale waxay leeyihiin beer weyn oo ku dhex taala oo loogu talagalay in dadku ay ku nastaan. Sidoo kale waxa u dhow oo dhinaca ku haya garoonkii ciyaaraha oo imika la wado, iyo waxa kale oo u dhow masaajidkii Sheekh Mustafa Xaji Ismaaciil oo isna garabka ku haya, oo markaad halkan aad degan tahay masaajidkii aad mar walba aad ku soo tukanaysid. Masha Allah, waa wax aad iyo aad u qurux badan. Shirkadda dhisaysa ayaa aad u nashqadeysay oo runtii shaqaalaha waxaan filayaa shaqaalaha guryaha ka shaqeynaya inay yihiin shaqaalaha ajnabi ah oo dhisanka iyo waxaan aad u fahmaya. Cidda u baahan shirkadda Telesom ayaa kala xiriiraysa, ama shirkadda Capson ayaa ka mas'uulan filaya oo lagala xiriiraya oo xafiisyadoodu ay halkan ku dhex yaalaan. Sidoo kale qaybta boorta kala jahan cidda u baahan xafiiskooda u dhow yahay iyaga ayaa kala xiriiraysan. Saas ayaa horta la soconaysaan. halkan calanka Djibouti
ayaa ku xidhan ama saaran. Waa safaaradii weeyaan. Marka cid u baahan oo kale way imaan karaysaa. Masallaha ayay ku taallaa. Baasaboorka Somaliland way fiiseeyaan. Haddaad doonaysid waad ka fiiseysan karaysaa. Halkan inaga horeysa waxaa ka muuqda calankii Turkiga. Marka waa meel baasaboorada lagu fiiseeyo oo fiisayaasha laga qaato. Koley areadan waxaa degan dadka inta badan dadka lacagta leh ayaa areadan dega. Waxaa kaloo degan hay'adaha, dadka madaxda ah. Runtii waa xaafad VIP ah oo aad u qurux badan. Walow aanan kiradeeda aanan garanayn intay tahay. Waxaan filayaa kiradeedu waa ilaa $300 haddaad u baahan tahay inaad guri ka kiraysato. Runtii waana meel dhisantay oo way iska adag tahay inaad ka heshid meel aad dhisato. Waa laga yaabaa inaad guri iibad hesho, laakiin guud ahaanba waa meel dhisantay. Waana masallaha sare. Wadada markaad hoos u sii raacdo aad hoos u degto waxaa ka hor imaanaya Masalafyo ayaa ka hor imaanaya. Laakiin waxaa yimaada meeshan wadooyin fara badan iyo laamiyo fara badan ayay leedahay. Marka horta xaafadan waa xaafad aad u qurux badan. Masha Allah. Insha Allah kuwa kale oo qurux badan oo soo duubi doona meelo kale oo aad iyo aad ugu heli doontaan oo meelaha Hargeysa kamid ah waa in soo duubi doona. Muuqaalka hadda ku cusub tahay subscribe saar, haddii kana like saar. aad iyo aad waa mahadsantihiin. Waa tan iyo muuqaal dambe xiiso leh.